Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Daawadayaal ku soo dhowaada Seto Academy. Magacaygu waa Cabdicasiis Cali Nuur. Fadlan haddaad ku cusub tahay channelka subscribe dheh, calaamadda gambaleelkaana furo si aad mar walba u daawato casharrada aan soo gelino. Channelkan waxaan ku soo gudbinaa casharro electrical engineering, telecommunication engineering oo kuwa aasaasiga ah iyo barnaamijyo la xiriira arrimaha bulshada. Casharka taxanaha oo aan meeshan soo gelino waa electric circuit oo aan wada ogsoonnahay inay tahay aasaaska electrical engineering. Marka maanta waxaan ka hadlaynaa cashir la xiriira cashirkii hore oo ahay Kirchhoff's laws. Kirchhoff's laws waxay ahaayeen laba sharci. Cashirkii ka horreeyay ayaan ku soo sharaxnay, linkigiisana hoos ayaan soo dhigi doonaa si aad u soo daawatid theory-ga kadibna practicalka ama exampleska aad ugu imaatid. Marka problem of Kirchhoff's laws waxaan ka shaqeyn doonaa laba problem ama laba example oo midna Kirchhoff's current law uu yahay ama KCL, midna Kirchhoff's voltage law ama KVL uu yahay. Cashirka ayaan guda gelaynaa. Waxaan ku horeynaynaa Kirchhoff's current law ama KCL. Example buugga aniga aan casharkan ka raaco ama aan casharadan ka soo qoro ama aan ka sharaxo waxaa la yiraahdaa fundamental of electric circuit ayaa la yiraahdaa. Chapterka labaad example-ka 7 ayaan ka shaqeynaynaa. Wuxuu leeyahay practice problem. Haddii aad buuggaas haysatid waxaan kugula talinayaa inaad ka shaqaysid practice problemkiisa si aad u ogaatid inaad example-ka fahamtay iyo inaadan fahmin. Sidoo kale waxaan kugula talinayaa in aad theory-ga si fiican u akhrisid, kadibna qeexitaanka KVL iyo KCL aad si fiican u dhuuxid, kadibna waad fahmi doontaa haddii Ilaahay yiraahdo. Ila soco. Waxaan ka hadlaynaa KCL. waxaa lagu dhahay waxaa raadisaa current-ga oo I0 ah iyo voltage-ka oo V0 ah oo ku jira sawirkan. Sawirkanna waa chapterka labaad, sawirka 25aad waaye ayaad ka raadinaysaa. Marka waxaan ognahay KCL wuxuu ahay. Marka adiga waxaad raadsanaysaa ayada saaran I0-dan iyo V0-dan aad rabaa inaad soo saartid. Waxaan dhahaynaa applying KCL. halkaas note ah. Nodekaas iskaga soo xirmaan. Waxaan aragnaa circuit-kan nodekan markaan taagannahay 0.5 3 ampere way soo gelaysaa, 0.5 I0-na way soo gelaysaa, I0-na way ka baxaysaa. Waxaan kaloo hore usoo sharaxnay dependent source oo voltage current dependent source waaye. Waxaa laga wadaa I0 markaad soo heshid, qiimahan I0 markaad soo heshid waxaad ku bedeli doontaa booskan I0, kadib sourcigan ama meeshan current-goodu wuxuu noqon doonaa isku dhufashada ka soo baxay 0.5 iyo qiimaha aad soo heshay I0. Marka sidee baan ku soo helayaa I0? Nodekan tan way soo gelaysaa, tanna way soo gelaysaa, tanna way ka baxaysaa. Marka applying KCL wuxuu ahay current-ga soo gelaya wuxuu la mid yahay current-ga ka baxaya. Sidaa darteed waxaan dhahaynaa 3 plus 0.5 I0 is equal I0.
I0 marka waxaan ognahay variable tusaale ahaan x plus 3 iskuma darsamaan soo maaha manaa 3x ma noqonayso marka 0.5 I0 3 kuma darsamayso sida darteed waxaan leenahay 3 taasay ku darsamaysaa ama ka jarsamaysaa xaggaan geenaynaa I0 minus 0.5 I0 kadib waxaan dhahayaa labadan soo kala jar waxay noqonaysaa 3 is equal 0.5 I0 kadib meel walba waxaa u qaybeysaa 0.5 labadan waa isla baxayaan I0 waxay la mid tahay 6 ampere saasaan ku soo helay I0 aan ku soo helay su-aasha laga diray waxay ahayd waxaa soo heshaa I0 iyo V0 V0dan marka intaas hadda waxaan ku soo helay KCL ama Kirchhoff's law aan ku soo helay soo maaha hadda marka waxaan fiirinayaa Ohm's law wuxuu ahay voltage oo lagu dhifto resistance marka current-ga inta maraya waxaan soo helnay 6 ampere resistance-gina waa 4 ampere V0 meeqa lagu helaa marka V0 waxay la mid tahay I0 oo lagu dhiftay R oo la mid ah 6 times 4 oo la mid ah 24 volt ayay la mid tahay marka hadda wixii la ii diray waan soo helay oo waxaan soo helay 6 ampere iyo 24 volt aan soo helay dependent source-gan wuxuu la mid yahay 0.5 oo lagu dhigtay qiimaha I0 meequu la mid noqonaya marka waa 0.5 oo lagu dhiftay 6 oo la mid ah 3 ampere intaana meesha marka waa 3 ampere tusaale ahaan hadda marka lagu dhahayo KCL markii noodkan hadda noodkaas aan macnaha current-ga soo gelaya iyo current-ga ka baxaya waa isku mid marka lagu dhahayo waxaa tusaale kaaga filan hadda waxaa soo gelaya 3 ampere intay ka soo gashay 3 ampere intay ka soo gashay 6 ampere way ka baxday haddii marka sawirkan qiimihiisu asagoo sawiran aan ku soo sawirno waa kana noodkii halkaan ahay noodkan waxaan 3 ampere soo gashay 3 ampere kalena way soo gashay 6 amperena way ka baxday sidaa darteed total ee soo gelaya waxay la mid yihiin total oo ka baxaya tan way soo gelaysaa tanna way soo gelaysaa tanna way ka baxaysaa marka waxaan filayaa KCL uu ku cadiya KCL wax kasta oo lagaga diro noodkaas ayaad ku xisaabinaysaa wuuna ku cadiya mar haddii KCL lasoo qaadana nood fiiri noodkaas kadib current-ga la soo bax kadibna wixii hadda labada sharciya haysta waxaa waaye KCL iyo KVL iyo Ohm's law labadoodana hadda waan ku shaqaynay say isku raacayaan waad aragteen waan ku shaqaynay labadoodaba meeshan waxaan ku shaqaynay Ohm's law kana waxaan ku shaqaynay KCL marka kalama maarmaan sharciyada aan baranayno marka saasay iskugu xirxiran yihiin haddana waxaan u gudbaynaa sharciga labaad ama example-ka labaad waxaan uga shaqayn doonaa Kirchhoff's voltage law ama KVL
example-kan aan uga shaqaynayno Kirchhoff's voltage law wuxuu ku yaalaa buugga hadda aan kuu sheegayo fundamental of electric circuit example-ka 2.8 ama 2.8 waaye waxaa raaysaa lagu dhahay current-ga iyo voltage-yada maraya sawirkan branch kasta oo ka mid ah sawirkan tusaale ahaan branchigan resistor waaye voltage iyo current ya maraya waa lagaa rabaa branchigan labaad waa resistor waxaa lagaa rabaa voltageka iyo current-ga maraya branchiga saddexaad waa lagaa rabaa branchiga afraad waa haysataa soo maa afarta branchiba waa laga rabaa marka afarta branchiga waxaa laga rabaa current-ga maraya voltageka maraya aa laga rabaa ila soco marka waxaan ognahay in KVL uu yahay closed loop isku geynta voltage-yada maraya closed loop inay lamid yihiin 0 macnaha algebraic sum aan kusoo qeexnay videoga sawirka hoose macnaha linkiga ayaan soo dhigayaa fadlan soo daawo videoga ka horeeyay aad buu muhiim u yahay markii loo fiirsho shaqada iyo practicalka ama problemska ama example-ada aan ka shaqayn doono waxaa muhiim u ah theory-gii hore ama cashirkii ka horeeyay linkigana soo dhigayaa marka soo fiirso marka meeshan waxaan u bixinaynaa loop 1 halkaana waxaan u bixinaynaa loop 2 loop 1 ayaan ku apply garaynaynaa waxaan ka bilaabanaa meeshan waxaan dhahaynaa minus 30 plus meeshay kasoo gelayso fiiri plus v1 plus v2 is equal 0 qaybtan waa loop 1 loop 2 waxaa helaysaa minus v2 ilaa xagga ka bilaabaysaa meesha minustaasa ka bilaabaysaa plus v3 is equal 0 labadan waa KVL aa ku apply garaysa KVL markaa ku apply garaysay haddana waxaad ku apply nodekaas A aad tegaysaa node A waa ujeedaa node A baad tegaysaa KVL-na meeshaasna waa ku apply garaynaysaa waayo waxaa KVL ugu apply garaynaysaa si aad meesha waxaa lagu dhahay current-na soo hel voltage-na soo hel marka current-na waa ku apply garaynaysaa KVL macnaha kan wuxuu ahaay KVL oo ahay kan halkan waxaa dhahaysaa KCL waa dhahaysaa KCL asna waxaa waaye current-gan I1 waa soo gelaysaa marka I1 waxay la mid tahay I2 plus I3 ay la mid tahay haddii tan aan habeeno waxaan ka dhigaynaa iyadana I1 minus kuwaana gudaha soo gelinayaa I2 minus I3 is equal 0 intaasa diyaarsata macnaha KCL iyo KVL aad diyaarsata hadda waxaa usoo laabanaysaa marka Ohm's law waxaad dhahaysaa halkan ayaa imaanaysaa macnaha waxaa imaanaysaa ka koobaad qaybtan koobaad loop 1 macnaha loop 1 aad tegaysaa waxaad dhahaysaa loop 1 waxay la mid tahay minus 30 plus halkan markaa ku laabatid voltage xaa lagu heli jiray voltage waxaa lagu heli jiray I oo lagu dhiftay resistance soo maa
current oo lagu daro resistance waxay haysataa 8 I1 aad dhehaysaa plus kana wuxuu la mid yahay V2 na waxay la mid tahay 3I2 halkaa markaa haysatid waxaa dhahaysaa waa habeynaysaa I1 inta kala soo baxaysaa I1 waxay la mid tahay dhahaysaa voltageka meel kasta u qaybin macnaha 8 kana meel kasta u qaybinaysaa tanna waa wareejinaysaa macnaha haddaad tan xagga usoo wareejisid ama tanaa wareejinaysaa macnaha qaybtan awal is equal 0 ay ahayd intaan is equal 0 inta kala wareeji marka waxay noqonaysaa 30 minus 3I2 8kii taasoo socda u qayb marka divided by 8 waxaan ka wadaa 8I1 meesheedan ku aalay 30ka markaan wareejiyey plus 30 ay noqonaysaa minus ay u lahayd tan plus ay u lahayd 3I2 ay noqonaysaa 8kiina u qaybshay siirada waxaa ka wada marka intaas markaan haysto halkan I1 aan ku daynayaa kadib waxaan dhahayaa loop 1 halkaasaan ku daynayaa loop 2 aan soo qabanayaa loop 2 muxuu awal ii ahaay minus V1 soo maahan marka waxaan dhahayaa minus 3I2 macnaha V2 intaas la mid ahayd plus I3 resistorku meeqoon waa mid yahay 6 waa kana 6I3 6I3 is equal 0 kadib waxaan dhahayaa halkaa markaan maraayo I3 aan meesha kala soo baxayaa I3 aan kala soo baxayaa marka waxaan dhahayaa 6I3 is equal 3I2 kadib 6 aan dhinac kasta u qaybinayaa labadan waa isla baxayaan I3 waxay la mid tahay 1/2I2 marka halkan waxaa dhahaysaa equation 2 halkanna waxaa u bixinaysaa equation 1 labadan equation waxaa ku bedelanaysaa intaa imaanaysaa marka halkanaa ku bedelanaysaa meeshan maxay ahayd I1 meeqa haystaa 30 minus 3I2 loo qaybshay 8 minus I2 ma haysatid minus I3 meeqa haystaa 1/2I2 I2 is equal 0 halkaa markaan maraya waxaan dhahayaa LCM-ka halkan hal hooseeya hal uu leeyahay kan 2 waaye kan 1 8 wuxuu yahay LCM-ka guud soo maaha 8 oo loo qaybshaa dhahaysaa tan sidii usoo laabanaysaa 30 minus 3I2 minus 8I2 8
I2 minus 4 I2 is equal 0 waxaan ka wadaa 8 kan LCM u qaatay halkaanaan soo dhigtay in 8 aan u qaybshay tan kore hal 8 markaan 8 u qaybsho 1 ka soo baxaysa 1 kii koraan ku dhiftay waxba kama bedelin 8 kii 1 u qaybshay waa 8 8 kii aan I2 ku dhiftay waa 8 I2 8 kii aan 2 u qaybshay waa 4 4 kii aan 1 ku dhiftay waa 4 I2 kadib wixii I2 oo dhan isku darso waxay noqonaysaa wixii I2 oo dhan markaa isku dhifato waxay noqonaysaa isku darsato macnaha 30 minus 3 8 ku dar waa 11 11 4 ku dar waa 15 ama 15 I2 loo qaybshay 8 waxay la mid tahay 0 cross multiplication zero-dan inta ku dhifo kana hal ku dhifo hal hooseeya zero-dan leedahay suma ku dhifo marka waxay noqonaysaa 0 waxay noqonaysaa 30 minus 15 I2 oo la mid ah 0 halkaas markaa maraysid 15 kan soo wareeji waxay noqonaysaa 15 I2 waxay la mid tahay 30 kadib 15 meel walba u qaybi I2 waxay kula mid tahay 2 ampere halkaas I2 aan kusoo saar equation 1 u imaa marka equation 1 haddaan I1 ku bedesho I2 haddaan ku bedesho booska I2 waxay noqonaysaa I1 waxay la mid tahay 30 laga jaray 3 lagu dhiftay 2 oo I1 loo qaybshay 8 oo la mid ah 30 laga jaray 6 loo qaybshay 8 I1 waxay la mid tahay 24 oo loo qaybshay 8 oo la mid ah 3 intaana waa I1 okay I2 waxaa soo hartay I3 equation 2 aan ku bedelinayaa I3 waxay la mid tahay 1/I2 I2 na waa 2 isla saar labadan I3 waxay la mid tahay 1 ampere sidaas waxaan kusoo wada helnay currentskii saddexda currentiba waan soo helnay oo sawirkaan maraysa saddexda currentiba waan soo helnay maxaan sameynaynaa marka saddexdaas current saan kusoo helnay KVL iyo KCL oo kasoo dhamaana oo mislow haddaad currentiga meel walba aad haysatid waxaad heli kartaa voltageka tusaale ahaan V1 saa u heshid waa inaa I1 iyo 8 isku dhifatid sidaa darteed waxay noqonaysaa V1 waxay la mid tahay 8 oo lagu dhiftay I1 oo aan soo helnay 3 oo la mid ah 24 volt waa V1 V2 waxay la mid tahay
resistorkeeda oo ahay v2 waxay la mid tahay resistorkeeda oo ahay 3 oo lagu dhiftay 2 oo la mid ah 6 volt. v3 waxay la mid tahay v3 waxay la mid tahay 6 oo lagu dhiftay 1 oo la mid ah 6 volt. sidaas marka ayaan waxaan ku soo helnay currents iyo voltage aan ku soo helnay v1 v2 v3 i1 i2 i3 iyo i2 sidaas ayaan kusoo wada helnay kulligood saasaan ku dhammaynay examplekaasna saasaan uga shaqaynay. marka meeshaas hadda waxaa ka dareemaysaa in la isticmaalay kvl kcl iyo ohms law wax ka baxsan oo aanan horay aanan usoo sharaxin ma isticmaalin. marka cashirka oo ku saabsan macnaha cashirka ku saabsan ohms lawna hoosaan soo dhigayaa, cashirka ku saabsan kvl iyo kclna hoosaan soo dhigayaa, labadoodaba fiirso daawo kadib waxaan way ku fudaanayaan biyo agtada ka noqonayaan. sidoo kale hadda xataa checking aad rabtid i1 meeqaan soo helnay 3 aan soo helnay soo maaha, waxaa la rabaa inay lamid noqoto i2 oo lagu daray i3. i2 waxaan soo helnay 2 i3na waxaan soo helnay 1 isku dar waa 3. that's it, intaasay ku egyahay dhan. voltageka fiiri haddii aad isku dirtid 30 macnaha 30 minus 30 haddii aad v1 ku dartid haddii oo v2 aad kusii dartid waxaa soo helaysaa 0. tusaale hadda aan fiirino v1 meeqaan helnay, v1 waxaan helnay 24 waxaa ku dartaa 6 oon v2 helnay waa 30 minus 30 iyo 30na 0. tan labaad fiiri v2 meeqaan helnay waxaan helnay 6 minus 6 ay noqonaysaa booskeeda haddii lagu bedesho v3na meeqaan helnay 6 0. wax kasta waa kalir waaye. marka intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa. aad baa u mahadsantahay daawashada videoga. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.